السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السوداء. عشر كان وعشر للصعود عشر كي أو عن سمينا conversion كم مركو حربا إن عن سلفير إنه quickly وحنا وصو بحي أو فائدة محا قصار صو بحي وحير إن كسمينه إن آخر إنه الداتا ذا كدبنا عن معناها optimization وحلا سمينه كدب دي نقطة الناس كدب الناس كدب منه هديك الناس سيبضنا مركو سوداء. جبرون conversion يعني هدية تحسسيتد وحواي 10 أو أديك 40 minutes إنه دنيا أمالينايو. marka haddii aan ku dhufano oo aan fiirino waqtigii ay xayisiinta bilaabatay kulleyba waxay aada umaleynayaa 3 bisha miya maqaan. marka adiga 3 days mise 3 days inuu socdaan maleynayaa. marka haddii aad fiirisid oo maanta kulleyba ay hadda le bilaabataba oo waqtiga hadda lagu jiro 2 days iyo adiga 48 hours iyo wax yar oo socday. marka waxaan rabaa marka inaan tuso meesha wax marayaan. haddii aad fiirisid waxaan target garaynay property oo macnaha interest target noo aheyd oo magaca ka dhiganay iyo 25 dadka jiro oo macnaha nin iyo naag iskugu jiro ilaa 65. marka waxaan rabaa marka inaan isla fiirino oo haddii aan fiirino dashboardkan haddaan iska bedelno resultka nooga soo baxay waa 12 oo macnaha dadka nala soo xiriiray u baahan in wax loo iibiyo guri loo iibiyo ama guri loo kireeyo. marka taas marka lan ka sheekeynaa CTR-ka oo link click through rate-kan oo jeedaa waa 2.16%. waana very important mar walba isha ku hay because waxa waaye waa haddii oo macnaha lacagta kugu socoto oo xaysiintaada ku socoto ay macnaha dadka aad ugu talagashay inay arkaan ay kasoo jawaabaan ay customer noqdaan aad ugu talagashay haddii macnaha ay sida aad rabto u shaqeynayso iyo haddii sida aadna rabin ay u shaqeynaysoba macnaha tanaka kale oga kartaa. haddii 1% ay ka yartahay adiga resultka meeshan kaga muuqdo that means lacaga kugu socoto xogoo xaysiintaada macnaha xogoo waxbay beerdareynaysaa. marka waxaa u baahan tahay haddii ay image ka tahay haddii ay videoga tahay haddii ay tahay qoraalka meesha kugu qoran haddii macnaha saddexdaas ay un ka koobnaa kartaa. haddii aad macnaha website aad u diraysid qofkana website-kan uu ka mid yahay because website-ka markaas Facebook waxay sii fiirinayaan qofka markuu ku dhufta linkiga oo website-ka aaday how long way qaadatay inuu meesha joogo oo macnaha oo waqtigiisa oo macnaha kadib haddii hore kasoo laabto oo kale markaas waxay fiirinayaan waxa lahayo bounce rate aa jiro oo macnaha ay u fiirinayaan. marka la socotaas hadda marka haddii fiirisid waxaa naga baxday £2 iyo 58 cent aa naga baxday so far. waxaan helnay 12 leads oo customer. marka haddii aan fiirino meeshii aan u diraynay kulley waa xasuusitiin website-kan aan u diraynay oo pixelka noogu jiray oo macnaha cashirka dhan aan ku qaadanaba. marka haddii aan imaano back office-ka oo macnaha page builder-ka aan isticmaalo marka leads haddaan ku dhufto kale waa kuwan dadka macnaha hadda oo meesha ku jiro oo issoo diiwaan geliyeen. haddii aan tagna meesha waa kan aniga waayo oo test yahay. marka haddii kan aad ka bilaawdid 1 kadib aan tirino 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. marka 11 hadda meesha ku qoran xaggan waxaa noogu qoran 12. marka haddii aan mar laba filin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 aa inta noogu qoran intana 12 ku qoran. marka haddii aan refresh dhaho pagekan oo macnaha aan ku tuso waxaan ka sheekeynaya inay wax saxayiin oo aana been ka sheegi karin Facebook. marka waa aragtaa website leads waa 12. haddii aan tagno leadska macnaha dashboardka aniga aan samaysano oo kale markaan tagno leadska weli 12 aa noogu qoran xaggan. marka waxaa laga yaabaa in weli oo macnaha Facebook oo axbad oo adiga iska xagga nooga soo bixin inuu asigana noo xisaabiyey. marka adiga 12 aan haysanaa oo dadkan soo gaaro waa 12 11 sorry meeshana 12 inaan macnaha leads helaan noogu qoran. marka datada sometimes waxbaa dhaco laakiin waxas waa caadi wax weyn maan. so marka waxaan rabaa marka wixii kasoo baxay dadkaas waa wada wacnay waxaan weydiinay waxay u baahan yihiin. dad qaar waxay raadinayeen guryo oo macnaha keli u baahanayeen dadna macnaha guryay haayeen laakiin eriyaday degan xogoo meel fog ama gurigay haayaan markaas guri oon hore laga kirey kari ahayn. marka dad oo guryo oo macnaha beeca haayana waa joogaan oo ku jiraan oo macnaha siyaas muusi dhex gelayno
marka waxaan ka wadaa haddii marka oo waxsan aad quickly aad u heli kartid macnaha data aad ku shaqaysid oo macnaha information oo macnaha businesskaaga isku markii dad aad la shaqayso aad hore ka heli kartid haddii agency aad furato kale for example oo marketing agency aad taho kale macnaha wax aad samaynaysid wax intaan ka duwan ma ahan waxaad samaysanaysaa video oo aad macnaha ku sharaxaysid macnaha waxa aad samaysid oo isbaarada ka sheekayna aad ku darsanaysid benefitka oo macnaha dadka why ay ku isticmaalayaan waxay kaa faa'iidayaan inay ku isticmaalaan iyo macnaha urgency oo macnaha in oo waqti una jirin oo qofka oo isku marka kula soo xiriiro oo kale oo adiga 30 second ama 1 minute intuu dhaxayso aad ka badanaysidna oo macnaha wax badan oo ka sheekaysa ay haysidna ka sheekeynaysid anta samaysato kadibna exactly waxaan samaysid ayaad waxaad helaysaa kastamaro u baahan service inaad siisid so marka haddii aan fiirino adsetka kasoo tagno adska aan fiirino creativekii aan samayno aan fiirino meeshaan ujeedaa markii aan samaynayna waxaan kala saarnay labo number 1 waxaan samaynay mid oo thumbnail la-aana iyo mid thumbnail wadato oo anaga thumbnailkan aan u dooranay haddii aad fiirisid click through ratekan u aragtaa midka thumbnail la-aanta ah waa 1.74 kan kalena waa 2.22 sababta waxay tahay because thumbnailka wuxuu kamid yahay qayb waxa waa isbaarada kamid oo qofka hore ka celinayo that's why marka click through ratekaga kor markuu aado CPM kaagana hoos u soo aadaa marka haddii aad isku fiirisid click through rateka marka 1.74 uu yahay oo CPM-kana waxa waaye click per 1000 impression macnaha 1000 impression kii ay Facebook ay siiyeen xaysiintan inta qof ku dhufatay iyo macnaha inta kugu baxayso markii 1000 impression ay heshid sorry sasan ka wadaa marka waa aragtaa CPM-ka kor u kaca waa macnaha waa 36 cent intana macnaha waa 32 cent because click through rate-kaaga wax yar higher than this one macnaha ma fahamtid so marka haddii aan soo baxnay fiirisid ma spend cost per click ayaa u baahanta inaa ogaatid inta macnaha qof markuu click dhaho ay kugu kacayso waa aragtaa midka thumbnailka aana wadan cost per leadka macnaha waxa waaye waa 40 cent lacag ku dhow inaa macnaha lead helno kan kalena waa 20 cent inaa qof customer-an helno marka ujeedaa thumbnailka waxa waaye waa big part oo kamid ah creative-kaaga iyo macnaha lacagta kaa baxayso intii noqo lahayd iyo marka haddii aad intaas fahamtid waxaa tahay 99% waxaa tahay marketer oo macnaha fahamsan why qaali u noqoto lacagta iyo why ay raqiis u tahay oo macnaha aana guess iyo wax adiga macnaha wax qiyaasaynin waxaa arkaysaa dad marketingkii iyo wixii facebookii iyo wax dad u samaynayo ama ayagu samaysanayo laakiin qiyaas ku socdo oo macnaha wixii sababtii waxaas u noqdeen aan sheegi karin marka haddii aan kasoo tagno oo cost per click caadiga aan tagno I hope inaan haysano cost per click cost per result waa isku midka cost per lead iyo cost per result anyway haddii aan ka tagno meeshaan oon galno performance-kan fiirino dashboardkan waa dashboardka oo macnaha oo Facebook oo built in ku marka casharkan waxaan rabaa inaan intaas ku ekeysiiyo oona macnaha wax kale aan kasii dhex gelin waa ujeediin kolleyba campaignka aan samaynay waxbaa kasoo baxay marka hadda campaignkan waa iska daminaa obviously saas uma sii soco doono because haddii aad xasuusatiin intaan ka bixin videoga aan ku xayeysiinayno wuxuu ahay video ani aan cod saaray oo meel aan kasoo qaaday laakiin haddii aniga aan ahaa lahay dalaal oo waxaan ku ganacsado oo ka shaqaysta waxaan anaa video iska duubi lahay waxaan isticmaali lahay scriptkii aan macnaha aan uga sheekeynay koorsadan oo ahayd oo 5 ka koobneed ama 4 ka koobneed ayaan isticmaalaa markaan isticmaalno videogaas anaa iska duubaayo markaan iska duubana saas videogaas macnaha xayeysiin ka dhigana inta kan ka dhiga lahay waxaan ubaa 100% video ani aan macnaha iska duubay hadduu ahaa lahay meesha hadda 12 aan ka helnay at least 30 qofood 40 qofood waa helinayn anagoo inta hadda naga baxday because markaas waxa waaye haddii aad fiirisid dadka wax u sheegaysid waa bini aadan oo ma ahan dad oo robots ma ahan oo waa bini aadankuna waxay jecel yihiin inay macnaha qof oo human being oo wax u sheegayo oo macnaha dhibaatadooda uga sheekeynayo oo macnaha oo inuu wax macnaha u sheega rabo oo dhibkooda fahamsan oo macnaha solution u wado
inay wax ka dhageystaan ayay ka jecel yihiin inta macnaha animation videos oo kan camala ay iska aamini lahaayeen. Marka obviously this macnaha waxa waaye waa old school oo macnaha videoda noocaas loo sameeyo 2016 oo kale, maybe 15, maybe 13 waqtiyadaas oo kale macquul inay shaqey lahaayeen. Laakiin hadda today wuxuu maraysaa in wax kasto, because dadkii more smarter ay soo noqonayaan, dadku aad ay usoo fahmayaan. So xayisiinta oo macnaha oo lagu bixi jiray videoyada oo macnaha TV-ga laga soo deji jiro oo kale hadda badanaa ma shaqeyso, oo macnaha wixii dhan waxay noqdeen okay way aan ku dhegeysanaa qofkii macnaha inaad macnaha natural inay noqoto waay xayisiintada. Marka haddii ani dalaal aan ahaa lahay definitely oo macnaha waxaan ka ganacsan lahay video anaa iska dubi lahay. Marka anina video iska duubo oon campaignkan geliyo ma rabin, because that would be different situation waay. Marka ma rabo, adiga waa fahmi kartaa sababtaas. Marka waa kaa cashirka meeshan ku egyahay. Cashirka ku xigo waxaan rabaa inaan ka sheekeyno qaabka loo create gareeyo WhatsApp iyo waxyaabahaas. Marka kusoo dhawaaw, waa in salaama. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.